Waa su'aalo iyo jawaabo. Jawaabo aad muhiim u ah ila socda. بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gabadhan waxay tiri waxaan ku riyooday gabar wejigayga dharbaaxayso gabaraan isnaqaano sida qoraalka idinka muuqdo dharbaaxida dadka inta badan waxay u maleeyaan riyadeeda inayn wanaagsaneyn laakiin waa riyo aad u wanaagsan. lambar 1 waxay tilmaamaysaa riyo kuu removes. lambar 2 waxay tilmaamaysaa qofka ku dharbaaxaya inaad wax ka faa'iidi doontid inaa xaggiisa wax wanaagsan kaaga imaan doono hadal wanaagsan saaxiibtinimo wuxuu ku siiyey waxay doontaa ahaato yacni waa riyo wanaagsan. su-aasha labaad gabadhan laba riyay wadataa. riyada koowaad waxay tiri uunsi caraf badan ayaan ku riyooday inkastoon jeclaan lahaa qofka markuu riyo iisoo sheegay inuu iisoo raacay in la qabiyo in kale. uunsiga guud ahaan haddaan ka hadlo hadduuba udgoon yahay waxay tilmaamaysaa tahaarad waxay tilmaamaysaa sunnada rasuulka yacni dhowrsanaan aadaab waxay tilmaamaysaa inaad tahay qof mar walba malaa'igta agagaarkiisa u badan yacni matalan qofka malaa'igta u badan waa qof dikri badan waa qof tahaarad badan waa qof yacni maxay ahayd waxyaabahaas oo kale. laakiin haddaa uunsiga urinaysid oo uraayo kale oo fiicneen oo lablabyahay kale waa qof badana shayaadiinta ka ag dhadhow yacni heesaha badsado tahaarad aana jirin waxyaabahaas oo kale. waxay kaloo tilmaamaysaa aragtida uunsiga caamaal wanaagsan wallahu yaclam. intaanan u gudagalin su-aasheeda labaad like saara marka hore haddaad igu cusubtahay subscribe saar laazim subscribe meesha cas iska taabta sadaqana niyeysta sidoo kale jananka in badan ii sheer gareeya waxaan u baahanahay inaan idinka helo dhiirigelin si anigana maxay niyad aan u helo firfircooni aan ugu qaado anigana in badan aan soo sameeyo muuqaalo ah. mideeda labaad su-aalahan ka jawaabaya qaarkood waxaan kasoo qaatay janankii kale marka janankaana qaar ayaan kasoo qaadanaya. su-aasheeda labaad waxay tiri habarartay ayaan ku riyooday iyadoo dirac siinaysa oo cusub. siismada sideedaba waa arrin wanaagsan reeda dhexdeeda khaasatan dhar sheyga hadduu cusub yahay mise dhar mise kabo waxay doonaan aadaan. waxay tilmaamaysaa arrimo yacni kuuga adkaa kuu xalismay. waxay kaloo tilmaamaysaa haddii gabadhaas la qabano uur ulaad raadis tahay wallahu yaclam. su-aasha waxaan kasoo qaatay jananka haddaad iga daawanaysaan gabadha waxay tiri ninkeyga ayaa weyse u baahday meel yacni magaalada ka baxsan anigoo joogna. qoraalka uu dheeriyaan soo koobay inta muhiimadan kasoo qaadanaya. almuhiim weysadii marka u baahday ceel meesha ku yaalay weysadii ugu soo dartay kabacdi markaa ceelkii aan ku noqonay biyihiis way soo buuxsamay tiri marka hore biyo yaraa ku jiri. biyaha badan oo quruxsan oo degan oo nadiifsan waa nolol cusub oo wanaagsan. biyaha sidooda waa nolol. weysada waa tahaaro waa u dhawaasho rabbi waa maxay ahayd dembi dhaaf matalan qofka hadduu hataa dunuub ka toobadkeena waxay u noqon kartaa dembi dhaaf. waxay kaloo noqon kartaa bilaabitaan yacni nolol fiican mise bilaabitaan camaal kheyriya ah wallahu yaclam. gabadhan waxay tiri mar walba waxaan ku riyoodaa wiilka aan xiriirka leenahay ayaan riyo ku arkaa tiktokna malihi li'aanu dad badan ayaan tiktok ugu soo jawaabay wiigaan oo dhan tiktok jawaabo badan ayaan soo dhigay oo youtube-ka layga soo su-aalay aan tiktok dad badan ugu soo jawaabay. almuhiim waxay tiri waxaan ku riyoodaa mar anigoo leh ilmihii eraan siixinaya ilmahan asigu dhalay marna waxay tiri uuran kuu leh anigoo dhahay intaaba waa axaadiisa nafsa badanaaba marka laba qofood xiriir ay leeyihiin riyooyinkooda waxay u badeen xadiisa nafsa. riyadan sidaas iskaga eg tahay waa labada marba caruur ayaa ku jirta wallahu yaclam. halkaasaan kusoo koobaya ha ilaabin inaad like saartaan aad sheer garaysaan subscribe-na aad saartaan walaalayaal in badan jananka kor u socodsiiya anigan markaa niyada ay dhismayso wax badan ayaa idiin soo wada insha allah.